السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. aad baan idin wada salaamaya dhammaan shacabka Soomaaliyeed meel kasta joogtaan. waa idin salaamay, soo dhawaada insha Allah. soo dhawaada insha Allah. aad baan idin wada salaamaya, soo dhawaada. soo dhawaada insha Allah. waa fiicanahay alxamdulilah. soo dhawaada. ramadaan mubaarak, kul caam wa antum bilkhayr. soo dhawaada insha Allah. aad baan idin wada salaamaya dhammaantiin meel kastaad joogtaan. aad baan idin wada salaamaya dhammaantiin meel kastaad joogtaan. soo dhawaada. wax yar baan rabay inaan idiin sheego arrin aada u muruga ah, wax laga naxo ah, wax communitigu ka seexdeen ah, wax culimmadu ka seexatay ah, wax siyaasiyiintu ka seexdeen ah, wax waalidiinta laftoodii kuwa dhibaatadu haysatana ay guryihii ka dhex ooynayaan, kuwa ayna weli soo gaadhinna ayna warba u haynin, kuwii ay ku dhacdeena ay qarinayaan oo guryihii ka dhex ooynayaan. marka waa magaalada gobolka Minnesota, xaaladdaas meeshay ka taagan tahay. wax aada looga naxana run ahaantii oo looga murugoodo waaye. marka insha Allah waa idiin bilaabaya barnaamijka. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. inta magacayga iyo muuqayga taqaanaba shacabka Soomaaliyeed meel kastaad joogtaan, waa walaalkiin cabdixakiin cusmaan nuur, ku magac dheer sheekh Soomaali, xerta shiikha magaalada Minneapolis gobolka Minnesota. inta magacayga iyo muuqayga taqaanaba, intay nacab, intay jecel, intay taageersan iyo inta iga soo horjeeda, dhammaantood waxaan idinku wada salaamayaa salaanta islaamka. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. lifekan yar ee kooban waxaan u soo galay arrin murugo ah. dhowr jeer horena aan ka hadlay, gobolka Minnesota ka taagan, Soomaali communityna ayna iska kaashanin, dadka ay ku dhacdayna ay ceeb u arkaan oo qarsanayaan, kuwa ay ku dhicinna ayna weli ogeyn. 72 saacadood ee ugu dambeeyey gobolka Minnesota, gaar ahaan magaalada Minneapolis, ilmihii labaad ee Soomaaliyeed ayaa u dhintay kiniin daraagis ah oo uu qaatay. mid ka mida ilmahaas isla markiiba naftii waa ka boodday, ka kalena 10 saacadood ka bacdi bay naftu ka baxda. kaynaan warsame watch your language, haddii kale blog baan ku saaraya. taas waa sharci. haddaad rabti inaad daawato barnaamijkayga watch your language, haddii kale blog baan ku saaraya. wabillahi tawfiiq. okay, kaynaan waa baxay, waa ku daayay. marka mid ka mida isla markiiba naftii waa ka baxday, kii kalena 10 saacadood ilaa 12 saacadood ka bacdi ayay naftii ka baxday. haddeeraa la soo aasay. oday kaloo Soomaaliyeed baa dhintay, isaguna xanuunkii waxaas u dhintay, maanta la aasay. laakiin ilmaha isagana waa lala aasay. waa qofkii labaad ee maanta lagu aaso qabuuraha kiniinkaas u dhintay. addeer gabdho Soomaaliyeed hooyooyin ah aad aan u aqaano oo ooyaya ayaa waxaan kula kulmay meel lagu ururinayey dadka daadadku qaadeen ee magaalada Qardho
halkaasaan imaaday gabadhaan aad u ixtiraamo walaashay Keen Cali Yuusuf soo wacday oon imaaday si aan uga soo fiiriyo wax meesha ka jira wixii aan wadan aan u keeno kabacdi gabdhahan aad oo qaano waliba aan qaar waalid u aho ooye oo afkii ka soo baxay yaa arrintii ii sheegay indhahoodana ilma ka daadanayso okay isaga indhahoodana ilma ka daadanayso haddeeray ka soo dareereen waxa weeyaan waa laasay wiilkaas isaga dhowr iyo 10 saacadood ka bacdi naftu ka baxday ka kalena shalay daraad buu dhintay adigu 7 hour gudahood weeyaan labadaba waalidkood waa la garanayaa ehelkooda waa la garanayaa okay isaga maanta way soo yaaceen okay go waalidkood waa la garanayaa ehelkoodana waa la garanayaa waalidiinta ay geeridu ku dhacday waxa weeyaan qaarkood waa qarsanayaan oo yacni dee waa waalid murugaysan oo geerii ku dhacday kuwa kale een ogayna way u soo socotaa oo u imaanaysaa geeridani sababtoo ah waxa weeyaan ilmihii war lagama hayo arrintan booliiska wiilasha Soomaaliyeed ee booliiska ee gobolka Minnesota dhowr jeer waa iga warrameen dhowr jeerna waan ka hadlay wax Soomaali community la yiraahdo oo meeshan jira oo aan qabaa'il ahay ma jirto maalin walba hooyooyinka ooya waan arkaa isla maanta kuwan aan la kulmay hadda meesha waan taaganahay aad bay oohintooda ii damaqday waxa weeyaan culimada Soomaaliyeed arrintan kamaysan hadlin dawlad laba dhimatay 12 saacadood gudahood 72 saacadood gudahood arrintan kamay hadleen culimada Soomaaliyeed xilla iskama saaraan run ahaantii siyaasiyiinta Soomaaliyeed ee codadka raadiya marga ay doonayaan in la doorto dadka u yimaada kama aysan hadlin qof kasta oo Soomaaliyeed waajib ayaa saaran hodan xaashi ilmo kale Soomaaliya hadda la soo aasay oo kiniinka u dhintay 72 saacadood gudahood waa ilmihii labaad ee dhintay walaal waalidka ay geeridu ku dhacdo ilmihiisa markuu soo aaso uu soo noqdo gurigu yimaadaa albaabku xidhaa waa loo yimaadaa allah u naxariisto samri iimaan allah ka siiyo kaas uu imanaya waalidka kalena isagana waxa weeyaan way ku soo socotaa marka maalin walba kuma jirano yani samri iimaan iyo allah loo naxariisto qof waa sax in la isku tacsiyeeyo oo loo duceeyo laakiin waa in waxaan laga hortagaa waa in ilmaha waxaan booliiska gobolka Minnesota waa in lala shaqeeyaa waa in la bushgareeyaa waa in waalidiintu isku soo baxaan waa in community-gu ilmahan waa la heli karaa meesha wax ka iibisa iyo cidda ka gada waa dad la garanayo waa dad la yaqaano community midaysan ma jiro meeshan community midaysan haba yaraatee Soomaaliya ma jiro waxa weeyaan haddii community midaysan la helo booliisku waxay ku qasban yihiin inay investigation furaan in tip line-ka la siiyo warka la siiyo dhan ay qaataan in ay tagaan dadka looga shakisan yahay oo la soo baaro oo la soo qabto laakiin waxa weeyaan yaa booliisku u tagaya yaa tip line-kii bixinaya yaa community oo wada socda ma jirto waxaa lagu mashquulsan yahay Snapchat Facebook how many view ba ay daawaday boqolaal kun oo qof ba ay daawaday maanta maxaa la yiri siyaasadda Soomaaliya maxaa ka dhacay maxaa la leeyahay halkan yaa la dooranayaa no
meeshaan musiibaa ka taagan dadka raaxay u haystaan iyo hadal 72 saacadood gudahooda ayaa ilmihii labaad dhintay oo kiniin u dhintay oo mid hadda la aasay midna naftiiba ay markiiba ka baxday soomaalida Minnesota war kaca war waxaan ha laga hortago war ciidamada hala bushkareeyo booliiska dawladda hala la hadlo shakhsiyaadka ciyaalka ka iibinaya waxaan hala soo qabto Soomaali xitaa hadduu yahay hala jaaj gareeyo hala xidho ilmaha lala saaxiibo ilmaha hala waaniyo ha loo qabto isku imaadiyo ha loo qabto hala isku yimaado oo hala shiro hala wada hadlo qabiil baa lagu mashquulsan yahay wax kale lagu mashquulsan yahay doorasho lagu mashquulsan yahay yaa baaso oo talina san dad ilmihii baa hadday dhintaan generation kii raatay san ku go'aan dadka dhammaan social media ka hadla waa inay arrintan ka hadlaan wallahi waa murugo Soomaaliya waa murugo arrintan wallahi waa murugo arrintan ha laga hadlo hana la soo baxo social media ha laga hadlo dawladda ha la hadlo ha la isku duubnaado war ilmihii waa dhamaadeen waxaad maqli jirteen xabad baa ku dhacday no kaniin baa dilay waa socotaa waxa kanaya ma aha ilmaha waxaan wax ka iibinaya shakhsiyaad la garanayo way halala shaqay dawladda hala soo qabto ummadda Soomaaliyeed gobolka Minnesota culimadu arrintan ka hadlo oo soo gala live oo waalidiinta la guubaabiyo oo waalidiinta ku dhacdeen ha loo tago ha loo tacsiyeeyo hana laga hortago oo hal la fiiriyo ilmaha yuu la xiriiri jiray yuu la hadli jiray yuu tagi jiray war ilmaha laftooda halala saaxiibo qaar baa ku waramaya oo ku sheegay warka ku oranay halkaas aan ka soo qaadnaa kuwaas halala saaxiibo halala hadlo subhanallah Somali community wax kale inuu ku mashquulsanahay نعيمة دعاء وارنتا إنا وارنتا عد كو جلقسي ما jirto waan daawanaya barnaamijyadaada waanan arkay cid ka hoos qaata ma jirto wax kale lagu mashquulsan yahay hebel kaale lacagsiya hebel kaale doonta hebel kaale u carara hebel maxaa saaka la yiri hebel imisa daawatay hebel imisa fiyo garaysay no war waxba nagama galay anaga dadka Soomaaliya jooga runta idin sheegay ama maamulahaada ama wax kala haado ilaahay halkooda ha ku barakay ilaahay halkooda ha ku hayo ilaahay halkooda ha ku nabadeeyo ilaahay halkooda ha ku yeelo laakiin halkan wax naga galay halkan dab ka baxaya maalin walba geeri ilmo yar ma u taagnaanana Soomaaliya arrintan ha laga hortago ha la isku soo baxo aniga ma daalayo ma aamusayo intii karaankayga aan awoodo ilmahan arkana waa waaninaya waa la hadlaya wixii online ka helay information ka waa la share gareynaya dawladda qofan ka gabanaya ma jirto haddaan ogaado meel wax lagu iibinayo oo ilmaha qaarka ii sheegan dawladda waan u sheegaya qofkii iibinaya waan u sheegaya taas wax aan gabanaya ma jirto because mas'uuliyad ay saaran مسؤولية دينية هي مسؤولية تقنية هي مسؤولية صومالية أنت ما يسارنتها وواجب إسلامي وشرعيا حتى إن كور تكتي واحد يبعته المهس جارية ما آموسية ما أنا كدالية لكن وحنا أبغى هنا دتك الصومالي كوميونتي دتك أنا وحش يا نجحيا وراء علماء وراء حتى قوة للدوران يا وترتمي حيلانكو وإن كهذا شيء واجب هذيك لو واحد يدين دوران منه waxaan idin dooranna ma jirto waxaan idin dooranna ma jirto idinka laftiina waa inaad ka hadashaan waa ka baxaya barnaamijka salaada casar baa soo dhow waxaan idin leeyahay dhamaantiin arrintan ha laga hadlo arrintan ha la hadlo anigu ma daalayo waa ka hadlaya every wadaad kasta oon arko iyo culimo kasta oon arkana arrintan waan u sheegaya waana wacaya caawa qaar badan aad baan idin wada salaamaya dhammaantiin ilaahay subxaana wa tacaala waxaan ka baryayaa waa bil ramadaan waa bishii barakaysnayd rabbi waxaan ka baryayaa ilaahay inuu ilmaha waxaan wax inooga siinaya ilaahay uu ka qabto ilmahaas in ilaahay badbaadiyo dhammaanteen ilaahay inaga badbaadiyo dhibaatada intii dhimatay allah u naxariisto inta xanuunsan allah caafiyo intaan xanuunkaani ku dhicin allah ka badbaadiyo ilmahana ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan uga baryayaa
waalidiinta Soomaaliyeed intii ilmuhu ka dhintay ilaahay qalbiga ha u qaboojiyo inta ay ka xun yihiin Allah ha hagaajiyo arrintan ha laga hortago gacmaha ha la isqabsado. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.